tuulo yar oo ku taala buuraha Baali ayaa muddo badan ilaa maantada hadda la joogo waxaa wali nafta u keenay oo ugaarsi nafta uga qaaday bahalo isku dhiig ah. habeenada kamid ah guriga kamid ayaa waxa markaas joogay laba gabdhood oo walaala mid yari waxay sii dhameeynaysay iskoolka mid weynna waxay markaas dhiganaysay college-ka oo isku guri ayayna degnaayeen. muddo yar kadibna mid yareed ayaa caloosha laga qabtay waxayna u carartay dhinaca musqusha laakiin markii ay ka soo laabatay musqusha ayaa waxay dareentay cabsi aad u badan. markaas waxay dareentay in uu qof caaw dhan daba socday oo markaas iyada daawanayay. markaas ayayna il ku xaday gadaasheeda waxayna aragtay hoos gadaasheeda taagan. markii si fiican u soo jeesatay gabadh yareed waxay aragtay islaan aad u weyn midaasoo kamid ah islaamaha ugu waaweyn oo reerkooda. markaas gabadhii markiiba waxay isku dayday inay u yeerto islaanta ayadoo gacanteeda u taagaysa laakiin islaanta uma aysan jawaabin. waxay ku soo fiirinaysaa weji aad u cabsi badan. wejigeedu wuxuu ahaa mid bilaa dareen ah oo gabigiisaba aan nuuxsanaynin. markii gabadhi ku celcelisay magaceeda waxay aragtay markiiba inuu jawiga isku bedelay mid aad u qabow gabigiisana cabsi ayuu noqday. xoogaasi u joogtayba islaantii madaxeeda ayaa jirka ka go'ay. madaxii wuxuu bilaabay inuu cirka ku duulo markaas asagoo wata uur ku jirtadii jirka islaantoo dhan asagoo markaas indho guduudan ay leedahay. gabadhi yareed aad ayay u qaylisay markay aragtay waxaan aad ku cabsida badan. markiibana waxay ku orday dhinaca qolka ay ku daawanayeen TV-ga. waxaa iskugu soo baxay reerkii oo dhan qayladeeda ayadoo ooyeysa ayayna waxay u sheegtay waxay meesha ku aragtay. reerkii oo dhanna ayagoo naxsan ayay gabadha hadalkeeda markaas dhageysanayeen. markaas dadkii xoogga lahaa ee reerka dhan ayaa isku soo baxay inay raadiyaan bahalka magaciisu waa leeg waana bahal markaas xuna dumarka uurka leh iyo caruurta yararka sidii ayayna bahalkii ku waayeen. maalmo yar kadib waxaa tuuladii oo dhan ku faafay warka in islaantii ay markaa geeriyootay. dadkii oo dhan way iskugu yimaadeen. siday aaminsan yihiin reerku waxay ahayd in jirka meydka ah uu markaas yaalo 2 ilaa 7 beri. markaa kadibna maalin khaas ah ay faamilka sugaan ayagoo markaas ay kala saarayaan nafta iyo jirka. labadii gabdhood iyo reerkii oo dhan ay isku dhiig ahaayeenba waxay markaas yimaadeen maalintii tacsida. habeen yar kadib waxay nolosha ku soo laabatay sideeda caadigeed. labadii gabdhoodna walaalaha ahaana waxay si nabada u daawanayeen TV-ga. kadibna mid yareed ayay mid weyneed weydiisay, abaayo caawa qolkaaga ma seexan karaa? aniga cabsi saa'id ayaan dareemayaa. gabadhii weyneed ayaa waxay ku jawaabtay iyadoo aad u carisan, maya ma ku seexan kartid qolkayga caawa. lagama yaabo caawa inaad qolkayga seexatid. kadibna gabadhii yareed ayay weydiisay, maxaa dhacay ugu diidan tahay? markaas ayay iyadoo carisan ku tiri, fiiri adiga ilama seexan kartid caawa, ciyaal ma tihid waa inaad isku xishootaa. laakiin abaayo maya, laakiin hay dhihin ma rabo inaad qolkayga seexatid. wax walboo dhaca ha ii iman qolkayga caawa marnaba. habeenkaas gabadhii yareed isku dayday inay seexato laakiin si walba isku daydo way seexan weysay. sababtaa waxaa maskaxdeeda ku wareeganaysay wixii aad ku cabsida badnaa ee habeenkii ay aragtay. ayadoon ahayn inay aado laakiin aan nafsadeeda iscelin karin ayay waxay aaday qolka walaasheed. si tartiib ayay albaabka u soo furtay waxayna aragtay qolkiina mugdi yahay. kadibna nalka ayay shiday iyadoo cabsanayso. markaasna waxaa ka soo horbaxay arrinta aadka u foosh xun iyadoo ay markaas aragtay walaasheed oo markaas ku fadhiya kursiga ayadoo bilaa nolol ah madaxeeduna uu markaas ka maqan yahay. waxay damacday inay qayliso laakiin way awoodi weysay wayna dhaqaaq weysay. sida u joogtay ayaa si kadisa markiiba waxaa isfurmay qolka daaqadiisa si xooga waxaana markaas ka soo galay walaasheed madaxeeda isagoo duulayo ayadoo markaas ka soo laabatay si fresh iyadoo u socotay dumarkii uurka lahaa iyo sidoo kale iyadoo soo ogaarsatay caruurtii yararka ee tuulada. markaasna gabadhii yarta waxay ogaatay in iyadana maalmaha ka mid ah ay noqon doonto qumayada leeg tuuladana ugaarsan doonto.